Soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaaraha halka kala socotaan waa Cawaale Official Channel. Waxaynu kaga hadli doonaa barnaamijkeena wargeysyadu waxay ka qoreen kubadda cagta. Tababaraha Rafael Rangnick oo sheegay dhibaatada haysata kooxda Man United. Karim Benzema miyuu Tamp wuxuu noqon doonaa kulanka Madrid derbiga caawa. Liverpool oo ay doontay Sadio iyo Salah ka hor kulanka Chelsea. Maxaa sababay? Samuel Eto'o oo loo doortay madaxweynaha kubadda cagta ee Cameroon. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan saaxiibayaal. United ayaa hal iyo eber kaga badisay Norwich fiidnimadii Sabtida, taasoo keentay in tababaraha ku-meel gaadhka ee Rafael Rangnick uu gaadhay rikoodh naadir ah kadib markii kooxdiisu ilaashatay shabaqa labadii kulan ee uu hogaamiyey kooxda. Gool u dhaliyay Cristiano Ronaldo daqiiqadii 75aad ayaa Man United kaga filnaaday in Redevils dhaafto kooxda Norwich, taasoo la micnaa in Rangnick hal iyo eber ku badiyay labadiisii kulan ee ugu horreeyay. Arrinta cajiibka ah ayaa in tababaraha reer Germany ee tababarihii labaad ee shabaqa ilaashaday labadiisii kulan ee ugu horreeyay Man United horyaalka midkii ugu horreeyay horyaalka ee sidaas sameeya 118 sano kadib. Markii ugu horreysay ee tababaraha Man United shabaqiisa ilaashada labada kulan ee ugu horreeya Premier League waxay ahayd sanadii 1903 iyadoo sidaa u sameeyay tababare Ernest Benzema ayaa ku soo laabtay kooxdiisa Real Madrid ee caawa wajihi doonta kooxda ee xafiltimaan isugu magaaladii ee Madrid. Benzema ayaa si buuxda ugu soo kabsaday dhaawacii ku seegay kulankii ugu dambeeyay, waxaanu haatan taam u yahay inuu ciyaaro kulanka caawa ee La Liga. Xidigii hore ee Samuel Eto'o ayaa maamuli doona kubadda cagta Cameroon 4 sano ee soo socda, kadib markii Sabtidii loo doortay madaxweynaha xidhiidhka FA ee dalkaasi. Ciyaaryahankan 4 jeer ku guuleystay abaalmarinta kubadda cagta Afrika ayaa ku guuleystay madaxweynaha kubadda cagta ee waddanka Cameroon. Eto'o ayaa ballan qaaday dib u habeyn ballaaran ku sameyn doona ciyaaraha waddanka Cameroon, sidoo kalena wuxuu ballan qaaday inuu dhisi doono 10 garoon inta uu xilka hayo. Waxaa kaloo hadda noqon doona madaxa FA Cameroon ee Fecafoot markuu waddanku martigeliyo koobka qaramada Afrika bilaha January iyo February ee nagu soo socda. Liverpool ayaa helaysa war aan u fiicnayn oo xidhiidhka kubadda qaaradda Afrika oo ay waayi doonto xidigaha aasaasiga ee kooxdooda ee Mohamed Salah, Sadio iyo Naby Keita. Sida haatan qorshuhu yahay, koobkaas ayaa loogu talagalay inuu dhaco 9 January ilaa 6 February, balse waxaa soo baxaya qorshe ka duwan oo hal toddobaad hore loo soo dhigo. Liverpool ayaa rajeynaysa in xidigaheeda ay tagi doonaan tartankaas si haysata waqtiga ugu dheer ee ugu macquulsan, xilli ay labada bisha ay tegayaan gegida Stamford Bridge iyagoo booqanaya Chelsea oo ka mid ah kooxaha sida tooska ugu tartamaya horyaalka Premier League. Sida uu sheegayo wargeyska Mirror, haatan sheegaya in kooxda reer Masar ee Al xidhiidhka kubadda cagta Afrika ka codsatay in hal toddobaad hore loo soo dhigo koobkaas la bilaabo 3 January, taasoo u fiicnayn Liverpool. Sidaa daraaddeed ay ka tagi doonaan ciyaaryahanada Mohamed Salah, Sadio iyo Naby Keita ka hor kulanka Chelsea. Sida wararka qaar sheegayaan, Al ayaa ka qaybgalaysa koobka qaaradaha adduunka kaasoo ay soo qaatay Champions Afrika. Sidaa daraaddeed, si ay chance ugu hesho koobkaas ayaa la sheegaya in lasoo hormari doono koobka Afrika. Intaas ayuu ku egyahay barnaamijkeenii wargeysyada. Asxaabta nagu cusub, fadlan subscribe saaro. Asxaabta hore noola joogtana like iyo share waa ku dara siina faafiya barnaamijkeenan si uu gaadho asxaabta jecel kubadda cagta. Mahadsanideen.